maanta barnaamijkeenan waxaan idinku haynaa barnaamij aad loo hadal hayay oo ahaa wiil ka soo jeeda Buuhoodle oo hore loogu haystay dil isaga oo geystay. wiilkaasi waxa uu ku xidhnaa muddo 10 sannadood ah xabsi ku yaala Somaliland gobolka Saaxil khaasatan degmada Mandheera. wiilka iyo 4 kale oo la mid ah maanta waxa lagu filayay qisaastaasi oo dhacday saaka subaxnimadii hore oo ah maalin Arbacaha bishuna ay ku beegan tahay 15 January 2020. haddaba wiilkaasi maxaa loo dilay? yaase dilay? qisaastiisuna maxay ku saabsanayd? dilka uu geystayna noocee ayuu ahaa? hore ayaynu uga aragnay baraha bulshada isaga oo soo codsanaya beeshii uu ka dhashay oo ahayd daarood bal inay ka soo bixiyaan dilka uu geystay magtiisa. halkii uu ka odhan lahaa Soomaalinimo iyo wixii dhiban oo dhani ha iga soo bixiyaan dilkaasi wixii muslim ku sheegta. haddaba barnaamijkeenan baynu ku falanqeynaynaa. si aad u daawato marka hore subscribe ku dhufo channelka halka hoose kabacdina ku dhufo calaamadda gambaleelka. waxaanad heli doontaa warbixintan oo xiiso leh iyo siday wax u dhaceenba. macaamiishayada sharafta halahow waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawatay. fadlan calaamadda subscribe-ka ku dhufo oo kabacdina waxaad raacisaa jalaska ama gambaleelka. waxaanad heli doontaa warbixinaha xiisaha leh ee aan halka soo gelino.